عليه الصلاة والسلام وحوليهي إخواني لمثل هذا فاعدوه ولا ليجي أسوي ديار قروبة قريان وكلاته لكن دتكو وحي دورتين إني عمران قريو أيسن عمر دونين وحي بابيين أو غرابيين قريو أي عمر دونان وآخرة كا أي أحبونا إني كشيكيستان وكفكران سيدي اللورد لها لكن ما يسن كفكرين سيدي نقندون كحالكو markaynu guurayno geerida noo timaado oon gurigeena aakhir aadayno Saalim ibn Xaazim ninka lagu yiri maxaan u libsanaa karaahida u nacnaa markaasuu yiri waxaan u nacnaa geeridu waxaynu qaraabina oon baabeena aakhiradeeni waxayna dhisnaa adduunkan daartaan baraarug sidee ugu guuraysaa guri aad camirtay od alaab jiif iyo joog iyo wax walba aad dhigatay iyo maacuun iyo koronto iyo TV sidee ugu guuraysaa u aadaysaa ila al-gharaab guri aad qaraabisay oo baabiisay insaanku ama qofka bini'aadamku wuxuu hilib iyo kalgacal u qabaa si uu ugu guuri lahaa guri oo camiray oo diyaarsaday hilib ayuu u qabaa qaabka ugu guuri lahaa laakiin guriga aakhiro ma yahay guri aad diyaarsatay oo adduunka markaa joogta ka fikir jirta dhismihiisa haddaba dhageyso guriga aakhiro wuu ku dhawaaqayaa waxa u sima ina maqasha inaadan maqal wuxuu ku leeyahay anigu waxaan ahay beedkii kalinimada aniga waxaan ahay gurigii xidlada aniga waxaan ahay gurigii tixsiga aniga waxaan ahay gurigii mugdiga aniga waxaan ahay gurigii kuleelka anigu waxaan ahay gurigii aad adiga marka adduunka joogto soo dhisatay markii lagu dajiyo qofka muuminka ah wuxuu kala kulmayaa soo dhaweyn oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xaqiisa ka ahaaday dhulku wuu isku imaadaa qof ka badbaadaya haddii uu jir lahaan waxaa ka badbaadi lahaa Sacad ibn Mucaad kaasoo u gilgishay geeridiisa aaweed carshur raxmaan qofka markii la dhigaa qabriga waa isku imaanaya isku maasha aad u daran nabigana wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam أحد هديه كبد بادي لها اسكو إماشة قبره وحا كبد بادي لها سعد حتى هدي لقبد بادي عروضة يا كبد بادي لها ين يكون ولقوا الحماسة الصمين لولكو واسكو إيمان لماذا لولكو هو يدين وحيه له وقبتا عروضة ذا وحا أصمى إنه باريها إنه عاقيها هدي أو باريها ويسكو إيمان يسا هو يدو سيد إنه هي له وقبتا وكالته أي سدري حبتك قشن waayo waa qof saalix ah markaas waxay ku leedahay waxaad ku socotay dhulkayga adigoo hagaagsan waxa ay kuwan ugu jacayl badanahay adigoo dusheeda korkeeda saaran maanta way ku soo dhaweynaysaa soo dhaweyn sida hooyo hilib u qabta wiil baari ah oo muddo aysan arag markaas isku soo dumaysaa xabadka gelinaysaa markaas dhaqdhaqaajin وإن كان عياذ بالله هدي قفك عاصيها أو كقافلها عباد رب العالمين هويدو waxay hil u qabtaa cunuga saaqidka ay cariisantahay inay qabataa markaas hal mar isku imaanaysa illa feeriisa ay isdhaafaan markaas ku leedahay ibnu caaq wiilkayga caasiga ah dusheeda korkeeda ayaa ku socdo ku nooleed adigoo ku caasiya rabbiga waxaad cuni jirtay ribada waxaad xama jirtay dadka waxaad ka tagi jirtay salaada wax macsiya kuma soo marin إلا واسمين جرتي ما أنت لكن ويكسو دقيسا مركزي سوء إيمانيسا وحي كل ذا واحد هاد كوا نوع عرب بدنها أو كراهيسين بدنها دتك كل شيء ده كنون ما أنت لكن علوش أيا كجرتها كركيك أيا براشين كمع معانك عني جرتي لكن ما أنت علوش ده أيا ترحيقك وقعنا كركي يا ربي كعاسين جرتي لكن ما أنت يا علوشي له عذابا إنسان كوالا مرمان إنه سنه ما من جورجا ويا وجوري أو أسيج أو كل استعماش أو قبنجري ولكن يمر بحسسنا نبي وحير عليه الصلاة والسلام زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة زو زيارة قبورها وايو قبورها مركز زو زيارة تام واحد كوان سنة آخرتنا قلبيدي قرر وجرعان أفير ولا للمجالة مدينة ذاتك مسلمين أي دقيهين وحا اسكو جرى ذات تجارة ذات مضحة ذات لقى معناها مساكينة
dad aqniyo ah intaba way ku jiraan markii aad la fadhiisataa micigooda way ku waanayaan waxay ku waanayaan aakhiradaada haddii aad laakiin aadan u imaanin ma ku tabayaan mana ku hiloobayaan sidii adduunyada saaxiibadooda kaleeta maahan ahlu adduunyadu markii aad la joogtaa way ku xaman ama way ku inkirayaan markii aad ka maqantahayna way ku hiloobayaan laakiin kuwaan way ka duwan yihiin wayna ka naseexo wanaagsan yihiin oo ka naseexo weyn kuwa adduunyada qabriga horta la fadhiiso micigooda la fadhiisa dadka dhintay waxaad arkaysaa inay xasilo yihiin oo aamusan yihiin waxaa laga marmaan walaalkaygiiyow inaad xasuusataa waxay u noolaayeen si anagoo u noolnahoo kaleeto way cuni jireen raashin saano cunoo kaleeto waxay u sacyi jireen inay guryo dhistaan laakiin way ka wada tageen markii aad la sheekaysataa ood ku tiraahdaa xaaladiina bal iga waram waxay kugu jawaabaan hal caro waxayna ku leeyihiin guryaha aynu dhisanna waan ka soo tagnay xaasaskayni way garooboobeen oolaadda aan dhalan aqoon ayay noqdeen maalkii aan u soo kulminay oon habeen iyo maalin u soo joodi jirnayn waa la kala qaybiyey khabarkiina agtiina halkaas ayuu ahaaday adinku adduunyada jooga khabarkiina bal ka warama walaalayaal waansamo waxaa waansamo qofkii allah subxaanahu watacaala la doonaa wadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin waanadu waxay anfacdaa dadka mu'miniinta ah qof qalbi leh maskax leh ilaahayna subxaanahu watacaala la doontay ayaa waansamo ilaahay subxaanahu watacaala qabriga hanoo waasiciyo inta dhimato muslimiinna allah u naxariisto ilaahayna subxaanahu watacaala waxaan rajaynaynaa qof walbo saacad walba ayuu leeyahay saacaddiisa in ilaahay subxaanahu watacaala ka dhiga marti la jecel yahay